Angola waa wadan ku yaala koonfurta Afrika waxa uu xuduud la leeyahay dalalka kala ah Namibia oo dhanka koonfureed ka xigta, Congo oo dhanka waqooyi kaga aadan, iyo Zambia oo dhanka bari kaga beegan, halka badweynta Atlantigana ay ka saaran tahay dhanka galbeed. Caasimadda iyo magaalada ugu weyn ee wadankan waxaa lagu magacaabaa Luanda. Dalkan waa dalka toddobaad ee ugu weyn qaaradda Afrika, ahna dalka 24aad ee ugu dhulka ballaaran caalamka, iyadoo lagu qiyaasay baaxad dhuleedkiisu 1,247,700 kiiloomitir laba jibaaran. Tirada dadkiisuna waxaa sidoo kale lagu qiyaasaa inay kor u dhaafayso 34 milyan. Dalkan Angola waxaa si rasmi ah loo aasaasay 1515, waana magaalo saaran xeebta waqooyi, waxaana aasaasay sahmiyihii lagu magacaabi jiray Paulo Dias de Novos. Magaalada Luanda oo ah caasimadda dalka Angola waxaa lagu naanaysaa inay tahay Baarista Afrika, waana magaalada ugu qaalisan Afrika oo ay ajaanibtu u soo dalxiis tagaan kuna noolaadaan. Dadka ku nool dalkan waa dad Afrikaan Bantu ah, waxaana ugu badan qowmiyadaha dega Ovimbundu oo 37% ah, Umbundu oo 25% ah. Sidoo kale waxaa soo raaca Kikungu, waxaana looga hadlaa luqado kala duwan oo ay adeegsadaan qowmiyadahan, balse luqadda rasmiga ah ee looga hadlo dalkan waa Portuguese. Marka laga eego dhanka diinta, badankood dadka ku nool dalkan waa Kiristaan oo Muslimiintu halkani way ku yar yihiin. Portugiiska ayaa gumaysan jiray dalkan ka hor inta aysan xorriyadda qaadanin, balse xoogag badan oo wadaniyiin ah ayaa la dagaalamay si ay u helaan dowlad xor ah. Ugu dambeynna waxay madax bannaanidooda heleen 11 November 1975.